بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله waxaan maanta runtii joognaa oo aan maaragtay ka qayb galnay seminar looga hadlayo leadershipka ama hoggaanka wanaagsan iyo sida ama dabeecadaha laga rabo inuu yeesho muxuu ahaa ninka hoggaamiyaha waxa soo qaban qaabiyay akademiyada hagaag oo runtii akademiya ku cusub wadanka laakiin aan arkayno in isla markiiba ay fahamtay baahida jirta inay toos u abaarto in dadka leaderska ama kawaadirta la baro aqoonta ka maqan ee xagga hogaamineed runtii waa arrin baahi mudan ay ka jirtay oo gaab ku jiray oo loo baahnaa waana runtii uga hambaleynayaa akademiyada hagaag doorka ay ka qaadatay ama fahamka ay fahamtay baahida ka jirta meeshaas inay tahay waan u hambaleynayaa dhammaan macallimiintii iyo dadkii soo awlay iyo guud ahaan akademiyada hagaag shaqadan ay noo qabatay aad ayayna u mahadsan tahay wallaahi dee waxaan qadanayno dhan kulli waxay ahayn wax oo loo baahnaa ama aan u baahnayn waxayna ahaayeen wax runtii la xiriira shaqada aan hayo oo hoggaanka hay'adda Direct Aid marka waxaan ka fahmay waxa ugu muhiimsan waxa waaye horta aniga asbarto aniga maxaan seen ahay horta aniga xageen jooga dabeecadaha aan leeyahay maxay tahay hoggaanku maxaa leaderka looga baahan yahay qofka leaderka maxay tahay waxa looga baahan yahay ama dabeecadaha ama calaamadaha inuu yeesho u baahan maxay tahay maxaa leaderku ilaahay ku abuuray oo leadernimada oo criteria oo asaga baa ku dhashay muxuu u baahan yahay inuu iska hormariyo oo asaga aqoon uu maartay ku daro waxyaabahaas oo dhan waxay ahayn waxyaabaha muhiimka ee aan ka baranay meeshaan runtii wax hadda su'aal iyo laba lagu soo joogi karmaa laakiin waxaan wax badan oo isbedel ayaan ku sameyn doonaa markaan laabto hadii la yiraahdo hay'adda iyo shaqaalihii aan madaxda u ahaa iyo hoggaankeedii intaba wallahi run waaye taniya badan soo qaatay macallinka naftiisa hadda aniga noo bixinaya casharada ugu cusbeen macallin wuxuu ahaa aan hore u soo arkay laakiin maadada ayaa aad waxay u ahayd most important u ahayd oo muhiim ahayd venue-ga iyo meesha lagu qabtayna aad u jawiga u fiicnaa qaabka la soo aawulay iyo waxyaabihii muxuu ahaayey tooliskii loo baahnaana runtii diyaar ay ahaayeen marka waxaan isleeyahay wuxuu ahaa training aad u qiimo badan oo aad u fiican